كان لدينا عدنا عند المينو دعاء فضل الرسول كي دايما جعلايو كان لدينا عدنا عند المينو دعاء فضل الرسول كي دايما جعلايو مشركين تديديو قالك دلايو وحيجي لصودري كان لقد ضيعينو كي دريقي توصنا دتك وجهيو waxaan horta rabaa inaan tacsiirkan uga diro inamadii maalin dhaweeto badda ku baaba'ay ee Soomaaliyeed aad baan uga damqannay aad baan eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo dadkii ay ka soo jeedeen iyo Soomaaliyo dhanba aan uga tacsiideynayna ilaahay waxaan leenahay mutaqaanana jannada firdaws ayagana ka waraabiyo ehelkii iyo kuwa ka dhasheenna sabri iimaan Allah ka siiyo ayaan ku soo gabagabeynaya haddana marka ugu horeysa horta dhamaantiinba haweenka aqyaarta suldaanka Sultaan Maxamed Ismaaciil iyo injineerkaba dhamaantiinba waa salaamaya salaamta islaamka aan ku salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh injineer Ahmed Warsame liiraahda mar waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga sinaanta iyo cadaaladda marna waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sheffield ee Restore Hope isbaras kadib horta waa idin mahadnaqaya isu imaatinka halkaan isugu nimid maanta anagoo rabnaa inaan arrin aad iyo aad muhiim u ah aan uga hadalno halkaan arrintaas oo ah arrin ugu waa arrin mujtamaca Soomaalida ku cusub taas oo ah injineer Maxamed Xaaji oo rag ay dagaal kala galeen xagga internetka warar been abuur ah lagaga faafiyay internetka arrintaas waxaan rabnaa inaan maanta jawaab ka bixino aniga qaasatan aad bay arrintaas ii taabatay sababtoo ah injineerka waxaan isnaqaanaa in badan laga soo bilaabo injineerka waxaan aqaanaa 1974kii waxbaan isla soo baranay barbaarintiisii hore naqaanay halkan Yurub markii la yimid Ingiriiska muddan badan baan mataqaanaa wada shaqeynay waa soo wada shaqeynay marka waxa yaab noqotay markaan arkay video YouTube-ka la geliyay arrin aad iyo aad waxay noqotay fajac ah arrintaas ayaan maanta meeshaan sugu nimid haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo suldaanka Suldaan Maxamed Ismaaciil suldaanka waa nin aad loo wada yaqaano waxa saraakiishii hore waagii ay Soomaalidu ciidamada ahayd saraakiisheediiba kamid ahaa seera satar uu magac dheer yahay runtii Manchester buu ka yimid asagu caaw meeshan aan fadhino waa London anigu waxaan ka imid Sheffield waxaan anagoo inteedaas isu wada keenayna waxa weeye aqoon aan naqaano injineerka iyo mutaqaana dagaalkan lagu qaaday inaan ognahay inay mutaqaana ay been yihiin aan ka hadalno marka haddana suldaanka ayaan ku soo dhaweynayaa soo dhawaada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin أنا مركب وجوه الرئيس صدق قلوب بنكها الله يا صدق ذا قلوب ذكر عتاهي محمد حاج علي
waxaa iska jira horta qofku markuu aqoon-yahan yahay ama mutacallim yahay ama horu socod u yahay cadow badan buu yeesha. cadowgaas oo ka kow ah maanta waxaa taqaala nimanka dadkii juhalaada ahaa oo la rabay in wax la baro waddada toosan la tuso ayaa hormoodu ah. waxaa weeye anaa waxaa qaana imaqal meelihiina kuwaasoo kalaa qabsaday. egoisma waxaa dhalatay oo anaaniyad ah. diintii baa la falanqeeyey. injineerka waa nin abka ab iyo isaga iyo faamil ahaan ku dhashay diinta islaamka, sunni ah, shaafici ah, aqoon weyn ula weliba mutacallimna ku ah. dad badanna laga yaabay inuu waxbaray oo waddada fiican ku toosiyey oo tabliiq noqday. laakiin ninka wax yaqaana jaahilkiiba cadow ku ah. waxaa dhacday meeliyaha inta dad kale cod laga soo duubay oo waxaad ogtihiin idinku hadda annaka halka fadhina inta madaxayada masawirka la qaada ayaa masawiro kale lagu dhejin karaa qof kale. xumaanuusan samayn ba haddana lagu dabiqi kara oo shaaba lagu dhejin karaa. marka hadda waxa weye problemka laysku haystaa maaha taas. waxa weeyaan horta muran kuma jiro islaamnimadiisa iyo sunninimadiisa iyo aqoontiisa. muranku wuxuu ku jiraa dad baa waxay leeyihiin waxaa u ah faamiligiisa, waxaa u aga eheladiisa, waxaa u ah dadka ula shaqeeyo soo diritaankiisoo dhan maranba u ah. marka waxa weeyaan dad ama wax ka durugsanaya ama wasakh ku tuuraya ayaa waxaa sameeyey. waxaan anigu qabaa in horta mujtamacu burbursan oo burburkaasina uu noqday xusti iyo nifaaq iyo been abuur iyo run-la-aan. marka annagu waxaanu caddaynaynaa intaydan meesha fadhino oo waayo arag sanadna u ah soona jiray soomaali muslimiin oo sunni ah oo abka abna ku dhashay loo yaqaano. waxaanu caddaynaynaa inuu nadiif ka yahay waxaasoo dhan ayaanu marag iyo shayga u nahay. maragtaasoo aanu u caddaynayna bulshada iyo kuwa waxaa faafiyey in iyagu ay yihiin victimized u yihiin injineerka. taasna xagga ilaahay bay ka helayaan. annaku cafi iyo waxay naga yihiin masaamix, laakiin inayna dib ugu noqon propagaankaas iyo waxa ay fidinayaan. taana annaku waxaanu ku adkaynaynaa inaanu halkan safarka u soo galay inaanu caddayno in injineerka waxaa lagu tilmaamay inay been abuur iyo propagand iyo xumaan iyo cadowtinimo loo qabo loo sameeyey. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. sayidkii la doortay dadka ugu mudnaayo murta laysu soo diro kii ugu dambeeyo xaqa kaan dedayne cidna aan dulmayno ducafada rasuulkii daa'iman jeclaayo. xaqa kaan dedayne cidna aan dulmayno ducafada rasuulkii daa'iman jeclaayo.
دمايو مشركين تديديو قالك دلايو وحيجي لصودري كان نقد ضيعينو كي دريقي توصنا دتك وجهيو